السلام الله عليكم وعلى قاعد لبض كنيسة لباتن وحاني نعرتي سنة عصب كل مركز عصبنا عرتو وحوادثك مسكاحتك صدع طلعت محا مسكاحتك صدعية ها إنينو إسبدلان مانو إنو قرصيال إيه أهداف ديغانو كانوا يقولوا كارنو بس سنة كمان تلجوغو أنيق ويا أركي غامن أركي وقدوين يحي مدوين كو دنبي ويرا صدح دي سنو دنبي وأنا هامين مربول بيكو قول درست إنو أهداف تقولك تهي كقولوا كارو سنة كنو قول ماني نيتشب هذا محادعي محاسيس بدلي وكل وذاك دونا وحان كلو إسلئي كدونا علاد حقيقة جرتها إن أهدافتين أو قول قاري كرلان هاي وحان كل وذاك دونا حل أنوارك إن سند كان وكوسه لكرين أهداف هذا كقول قاري إن شاء الله تعالى سودو هذا نوع السبت مقعي ويحي وحان هوي اللي عادي سكا سكودي نولش هرمرك السماية نولش كرو أو كبعه sida badanka sameeyo waxa isku day jireen in muuqaal la daawado ka waramaya sida hadaaf dhigashada ahdaafta sida loogu guul gaaro isbedelka iyo wixii lamida balse sanad walba marka aan daawado waxa sameyn jiray ama dhigan jiray qorshayaal arabay in sanadka ka gaaro si waxay ugu dhamaan jiray sanad walba niyad jab iyo aan qorshayaashaydii aan waxba ka guul gaarin sanadka cusubna islaayigi dib u qoro ilaa ma la soo gaaray 2024 oo markay wax walba isbedeleen aan ka baxay xeerada qorshayaasha laga guul gaaraanka hadaba maxay isbedeleen وفصحي أما سمركي اللي بدك نيافر لاتن كهاد بكهاد تقانو تعدد ولا حدا وحن سؤالها قبل أن شقو آدي ومدة 3 بلاد أنا كسوق هذا دونه هذا بحن سويدي فصحن إنه كلية صور شقي سنة العق يعني إنه وحكي لك كفائدة سني وف كل إن يرى معانا أقول له هذا بحن قان صدق إن 3 بوكس آخريو هالكورس أنا سوقاته قرشة يجوينا وايد يار وإنا وح آخريو إنا وح صادقته إنا صور شقيسته لكن ما هيو step by step أما طلاب ودتي أن مري لها أما نراعي لها رود ماب كي ما هيو هذان تاسو كليه قصعدنا والله مايا هذا با أنت أنا كل وداعين محن سمي أما محادعي محن دوني نسلا أجنو محيهن عن عقبضها أما عرقلضها إنه هرستاجا أما إنودي إنه أهداف تاني كقول كاري كروينه وحن أصدق كلنا كل وداعي دونا محن كحليانو أنا جهورتجيني يقطعها sidoo kale sanadkan cusub ahdaafteeda sidaan ugu dabaqayaa aan wax yar dib u noqono mudooyinkii 3 sano ama 2 sano u dambeeyay waxaan qaar daawada dadaan islaanahay waxbay ka qunbadiya ama waxaad ka faa'iidi kartaan kadib markii muuqaalada dhamaysan waxaan haajinay qaar xamaasadaysan waxaan qoran jirnay ama ka fikir jirnay ahdaaf aan rabno inaynu sanadkan ka guul gaarno balse sanadku wuxuu inoo marka aynu qorno ahdaafteena intaanu sanadku dhexba gaarin bisha labaad bisha saddexaad waxaan arki jirnay inagoo ilownay ahdaaftii aynu qoranay ama aynu rabnay ka guul gaarno inagoo meelaan ka soconay meel u socono toona midna garanay sanadku markuu inoo dhamaadana waxaanu arki jirnay inagoo waxba ka guul gaarin ahdaafteen sanadka dhiganay intaan dib u qaadno mar labaad aynu sanad kale u guuri jirnay inagoo isleeyay wada noo rabnay ka guul gaarno rootiinkeena nasaas ahaa hadaba maxaa baa inagu dhacay ciladahay ka jirtaa waxaynu nahay ama aynu sameynaa laba khalad hadaba aan kula wadaagi doona adigu waanad kartaa khaladka samayso ama teamka tahay hadda labadaba samayso qolada koowaad si aanu fahanno khaladka ama cilada hay ka jirto waxay la sawirataa tusaalahan anad maanta martii tahay gurigeygaada igu timid waxaan ku dhiibay lacag baan ku dhiibay waxaan ku yiri hebelow dukaanka aad inoo soo iibi cabitaan waxaan ku diray waad garanaysan ka rabo meeshan ku darina wad garanaysaa laakiin ma garanaysid wadadii aad u mari lahayd xaafadana maanta wad ku cusubtay tusaale macquul ma aha inaad dukaankii garato kadibna adigoo alaabta soo iibiyaad isla gurigii dib ku soo noqoto gurigii dib soo garato marka haddaan tilmaam ku siin albaabkaygu baad hortaagnaan doontaa wax tallaabo oo qaadi doontaan habeeraad ma jirto ahdaaf dhigashaduna tusaalahaas wuxuu ku dabaqaysaa haddaad haysan wada aad u marayso haddaad haysan step by step maana talaabada qaadaysa haddaad haysan ee hadafka ku dhaweynaysa beritaad qaadaysa haddaad haysan tawiiga soo socdaad qaadaysa haddaad haysan tabishan aad qaadaysa haddaad haysan inta midna haddaad haysan laakiin aad haysato hal gool oo weyn tusaale haddaad maanta dhigato inaad $1 oo lacag samayso sanadkan laakiin aad haysan wada aad u marayso oo ay imkaan inaad shaqo halka ka hesho inaad taa kala shaqo ka hesho shaqadaad 500 ka soo xariso tan kale 300 ka soo xariso 200 oo kale aad macallin habeenkii noqoto yani aad qorshaha noocaas haysan oo maalin ba talaabo qaaso waa in step by step everything waa inuu clear yahay hadii kale
qorshaha weyn waad daawanun waad ka fikirun procrastination badan baad ku samayn waxaad odhanun talo beri saasan samayn yani tallaabo qaadi kari maysid qolada labaadna aniga dib ugu noqon tusaalaha dukaanka tilmaam kuma siin oo kuma tilmaamin dukaanka meel uu yahay haddaba waxaan ku leeyahay mar israacinaye waan soo wadiibinaa inta si wada soconay adaan ku buuqay qofkaaga weyn meenta heerbaad ku lumaysaa meesha heerbaad kala waayaysaa xagaad iska dhigaysaa waxaan waxba garanayno miiki imid inta kugu buuqay inta ku lahaa aynu dukaanka gaarnay waxaan kale iloobo wixii aan anigu rabayna soo iibiyo ee iga dhinaa kadib ma haysto warqad kuma soo qoran mobilkayga tee waxii ma igu soo degmay dib igu soo noqonaysay anoo kala baran guriga ku soo noqonaya kadib wixii iga dhinaa baan dib u eegaya waan noqonaya haddana dukaanka mar labaad ka soo iibinaya waan soo noqonaya yani wada dheer weeye dukaanka mar gaari laakiin wixii waan kala iloobay badankeena waxaan haystaa waxa weeyaan road map iyo talaabo waynu garanaa wixii aanu qaadanay balse waxaa dhacda in duruufaha nolosha iyo waxaan ku dhadhalaalka nolosha ay niloosiyaan wadadaynu haynay waxaanu u soconay iyo hadafkeena iyo ujeedooyinkooda waxay ahaayeen marka haddaanaynu haysan wax ina xasuusinaya mar walba ahdaafteena iyo wadada ay tahay inaan wadadaynu haynay nolosha meeshaynu ku jirnay iyo waxaanu noolayn mar walba waxaan sarkanaa inagoon shaqadeena haynahayn haddaba haddaynu isla fahnay khaladaadka ama ciladu meesha ka jirto waxaynu baahnayna isweydiino wuxuu xal ku noqonayaa maxaan ku xallin karnaa carqaladahan ama dhibaatooyinkan si aynu uga guulgaarno ahdaafteena khaladka koowaad oo ah inaanaynu haysan qorshe ama road map aynu ku gaadhayno hadafkeena weyn waxaad ku xallin karaysaa inaad hadafkaaga weyn jajabiso aad u kala jabiso wado talaabo yarood qaadi karayso cad sida inaad u kala jabiso bilaha waxaad qabanayso bishan oo kale hadaad imka qorshayso oo kale inaad 12 bug bishan sanadkan akhrido inaad u kala jabiso bil walba waxaan akhrinaya hal bug haddana aad u kala jabiso week walba imisa page baan akhrinaya 70 page 60 page haddana adoo ku dabaqaya weeka waxa ku yaalay inaad hadafkaad rabtay inaad gaadho weekend aad si kala qaybso daily intaad akhrinayso marka bari marka soo kacdo kale uma baahnid in cid ku sheegto ama aad ka fikirto waxaad qabanayso waa ku cad yahay bari waxa ku yaala 10 page buugana inaad akhrido waa warcad yani ma aha waxaad procrastinate gareyn karto ama aad ku wareegi karto haddana anu oo kale wax sidan u qaybiyay ama aan u balaan gareeyay samarkaygii waxaan isticmaalaa application Notion la yiraahdo halkan ugu jeedaan waxa weeyaan halka magacaas waa khaldan yahay annual goals baa ku qoran but waxba muhiim ah halkan taasar muhiim ah halka waxaa ku qoran n oo shaqo ah oo qorshihii muxuu ahaa wuxuu kamid yahay saddexdeedii qorshe halkana waa technology waa course-kii halkan kan la wariir saddex bug waxa kale muhiim isaguna ma aha haddaba bugaagteedii saddexdii bug akhrinay koowaad oo aan saddexdii bilood waan u kala qaybiyay saddexdii bug bil walba bug halka aad ku arkaysan July halkaas August ilaa 6 August ilaa 1 September oo buuxda 2 September ilaa 3 September 1 September bishii kood waxaan akhriyay bug la yiraahdo School of Prophets bug af Carabi waa waxa la yiraahdaa madrasatu anbiya buha wuxuu bug si kan wala akhrinayaan ku raaxaystay oo aad u jeclaa rabana insha Allah qorsheenan ku celiyo 2 jeer ama 3 jeer kale hada Carabi fahmaysan waxa kula talaa buga 100% inaad akhrido bisha labaad waxaan qorsheeyay bug la yiraahdo sifatu salatu nabi maya siratul nabi ayuha rawdatul anwar I think waa kan buugaas waha marka isaga laftirkiisu inuu inkastoo buugaas u baahan yahay hawl badan haddana uu fiicnaa bishii saddexaad waxaan qorsheeyay buug la yiraahdo Think and Grow Rich marka saddexdii buug saan u qaybiyey mid walba halkan waad ka arki karaysaan kan waxay qorshaysan 10 page per day I think 260 buu ahaa kanna waxay qorshaysnaa 8 pages per day kan kalena saad arkaysaan waxaa ku qoran 10 pages per day so daily waan ogahay wax inta ii taalayna akhriyo buukan si aan u gaadho hadafkayga marka ma jiro wax idawaqinaya ama ka fikiraa qorshay kala haynan waxa akhristo course-kaygii waan kala jijibiyay waxaan kala jijibiyay qaybo marka kale coding baan baray dad coding ka bartaa way fahmayaan language baan kala jijibiyay marka bisha koowaad language ka HTML dhiganay kasto 2 basic ay tahay marka wax walbana way yaaleen just kaliina maal walba dhigto qorshaysnayd muddo 2 saacadood
maalin bishii labaadna CSS-ka waa ka sii hawl badan yahay marka way saw kala sareen ka waa basic waa middle ka kala saddexaadna waxa weeyaan advanced weeye marka wayna sii kala badan marka waxay leeyahay kala qabinayna way saasan u sii hoos qorshay research samee resource ka u baahan tahay halkan balan garay project ku dabaqi doonto ama ku train gareyn doonto project koowaad project labaad marka halkan bisha saddexaad marka loo yimaadana maadada waxaan dhigay language kale JavaScript la yiraahdo hadda isagana sidaas leeg ayaan ku sii qorsheeyay waxyaalahan qabanayo talaabooyinka qabanayo marka yani wax basaasi ugu cadiin ma jiro wax iga daahsoon ama aan ka fikirayo ama u baahan inaan isweydiiyo jiskaliya marka soo kaco ama waqtigii wax qabsan laga gaaro jiskaliya wixii qorshaysnaa maalka u baan u sii guda kala hadaba iyadoo waxaan oo dhan diyaarsiin waxa iman karta khaladka labaad arkaynay iyo ahaa in wixii ilowno ama ay maskaxdeena ka baxo ama aan aragno inagu banaanka joogno qorsheeyeen si aan taas ugu dhicin waxaan isticmaalaa application Notion la yiraahdo anigu maalin walba ma booqdo waayo jaamacadeeda resource jaamacadeeda dhanba ku jira wax walba balan garin xagana ku qoraa wax walba note qori halkan ku qoraa yani wax walba uu yahay marka waxaan sameeyay project ama qorshayga 2020 way tustoona halkaas uu hadda isagu ugu sareeyo ayuu kan igu jiray marka maalin walba marka soo galo si aanan u iloobin in wax yaalaan isaga ugu sareeyay markaas ugu soo dhuftana marka ku dhuftana waxaan arkayaa qorshaha yani waxa ay qorshaysan wuxuu yahay waxa ugu muhiimsan waa kuwan soo arkaya marka mar walba waan xasuusanay oo mar walba soo galo waan arkay waxay qorshaysan laakiin waxaad ku xalin kartaa hada Notion isticmaalin waxaad sameyn kartaa vision board baad sameyn kartaa waxaad sameyn kartaa inaad screenshot ama aad wax ka qaadato ama sawir ahaan aad u dhigato wax ku xasuusinay inaad screenka dhigato laptopkaaga mobilkaaga dhigato ay ku soo mar walba furnaa oo mar walba gacanta ku haynaa ama aad sameyso adigu wax ku xasuusino maalin walba inaad wada hayso inuu jiro hadaf aad u ordaysa ama aad leedahay hadaba hadaynu fahanay khaladaadkii iyo xalkoogina aanu helnay xarabeen in la wadaago ama yani sidaan ugu dabaqayo ama ugu dabaqay qorshayaasheeda sanadkan sidaan xagga warba ka soo sheegay si aanan uga dhex bixin qorshahayga sanadkan ama ahdaafteeda sanadkan sidaan horeba u sameeyay wuxuu ugu sareeyaa project 2025 note wuxuu sareeyaa Notion listigayga ama Notion fileskayga ugu sareeyaa si mar walba soo go'aan u arko ama aan muxuu ahaay waxa sustainay qorshayaal yaalaan hadda isaga gudihiisa u sii galo mar raba inay la wadaago waa macquul ma ahayn qorshayaasha la wadaago balse inta aan u arkin macquul tahay bay la wadaagaya way iska badan yihiin ka koowaad haddaan la wadaago buugaagan raba inaan akhriyo 6 buug raba inaan akhriyo halka waxa igu qoran database and tracking ku sameeyay yani ogaanay halka waxay marayaan halka way start date-ka waxa lagu bilaabay xilligu dhamaanay buugu xaaladiisu halka marayso maan bilaabin muu dhamaaday inta buugagtuna sanad kala horeeyaan buugu horeeyay oo la dhacan paradox oo mind management ayaan ka waramaya buugga labaad oo hore u akhriyo mar labaad akhrinayo kuwa igu cusub ku kala igu cusub kaawan hay fakhri in dhameystir raba kana waa mar labaad akhrinaya buugagta wanaagsan mar iyo laba iyo saddex baan akhriyaa aad bay u fiican tahay qorshaha saddexaadan idin la wadaagayo waxa weeyaan sanadka waxay qorshaysan aad baan u jecel sanadkii hore waa rabay inaan marathon ordo laakiin xaalad caafimaad bay sahli weyday 100 cishan inkastoo 100 cisho orada aan dhameystirtay consecutive isku xidhiidha kan hadda aragtan yani uu kala wada yaala 1 kilometer 3 kilometer 4 kilometer 2 kilometer hadana 15 kilometer 2 kilometer 7 kilometer baa la socda yani waa afarta bilood ka horeeya shanta bilood ka horeeya bishii lixaad yani qaabka aan u ordayo bisha koowaad 1 kilometer mar orad mar 3 kilometer orad labada wiiga horeeya afarta wiiga kala qaybi hadana 4 kilometer orad bil dhan 2 kilometer 2 bilood bil orad 2 kilometer adoo wiigiiba 2 cisho 7 kilometer ordaya hadana laba jeero 15 kilometer marka lugahayga waxaan barayaa inta hore waan diirinayaa lugteeda jirkayga nafteeda barayaa inaan ordo inta dambana waxaan barayaa in lugahay urdi karaan muddo dheer halkan waxa weeyaan waa tracking-kii
maalmaha muddada intan orday oo qorshe oo intayna qorsheygu ahaa 1 kilomitir inaan ordo inta cishaan ka orday maanta ka wahayd oo maanta jimce isniin jimce sabti axad bay qorsheysan maanta marka ka wahayd jimce ahayd saakan orday qaabkay ahayd yani wiiga muddada inta yani markaan dhameeyay maxaan dareemayaa say wax u dhaceen marka kaasina marka wax walba ay qorsheysiin waan arkayaa waxaan qaaday talaabadan qaaday waxaan sameynay weekend bishan iyo 6 biloodba kaliya waxa la iga baahan yahay discipline aan wax ku qaban lahaa waana ka muhiimsan qorshaha laakiin haddaad wax qorshe lahayn discipline uma baahnid haddaad qorshe leedahay discipline u baahan tahay xarjeen wuxuu ka faa'iiday haddaad ka faa'iiday waxa ka codsanayna muuqaalka like gareyso inkastoo xabeebtayba channelkana subscribe tira dadku cusub tahay gambalaalkana furato si wixii dambe aan soo dhignay ku soo gaaraan noqoto maybe qofka ugu horeeya daawada insha Allah ta'ala ugu hor like gareeya inta ay ka dambe fi amaanillah